qodobadaasi xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo waliba arrimaha doorashooyinka ayaanu ku falanqayn doonaa barnaamijka waxaana marti ugu ah Bashiir Xaaji Cali oo ah musharax madaxweyne isla markaana khadka Skype-ka toos uga soo jira dalka Canada. ugu horreynna waxaan weydiinayaa bal aragtidiisa ku aadan sida uu arko halka arrimuhu ay marayaan. runtii weydii ka mahad celinayaa haddaan in yar wax ka idhaaho arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaan u arkaa inay si wanaagsan u socdaan waa ilaahay mahadii dalka Soomaaliya oo maanta isu diyaarinaya horeyna u soo maray doorasho inkastoo ay doorashadeen ahayn hal qof iyo hal cod haddana doorasho dadban oo si daahfuran loo doorto had iyo goor caqabado way iska jiraan marka doorasho iyo loo dhaqaaqo turunturooyin way iska jiraan laakiin waxaan u arkaa Soomaaliya inay qaaday dhabadii saxda ahayd ee dimuqraadiyadda. waa tahay sidaad og tahay dowladda federaalka ah ee madaxweynaha iyo xisbiga nabad iyo nolol iyo musharaxiinta mucaaradka si weyn bay isaga soo horjeedaan qaabkii doorashada loo qaban lahaa waxaana garabka musharaxiinta mucaaradka raacsan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland doorashadii dib bay u dhacday labada dhinac eedda yaa qaadanaya dib u dhaca doorashada. waa su'aal wanaagsan runtii Nuuridiin horta doorashadan waxaa mas'uul ka saaran yahay fulinteeda had iyo goorna gacanta ku haya inay qabtaanna ay waajib dowladda markaa jirta ee dalka u talisa marka mas'uuliyadda fulinta doorashada waxaa horta mas'uulka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaase ku weheliya oo ka mid ah iyaguna qolyaha ku lugta leh inay iyaguna doorashada qayb ka noqdaan maamul goboleedada dalka marka maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir intuba mar walba oo la isu imanayay waa laga wada tashanayay dowladda federaalka marka wax kasta oo dib u dhac ku yimid doorashada mas'uuliyadda anigu waxaan u arkaa inay wada leeyihiin dowladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu dhammaantood. waa tahay laakiin haddii dowladdu ay mas'uuliyadda leedahay oo ay tahay doorashada inay qabato shirna ay intaas oo jeer isugu yeedhay maamul goboleedyadii oo heshiis la gaadhay 17 Sebtembar waxyaabaha cagajiidka faraha badan ee soo noqnoqonaya ee ka imanaya xagga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ay ku taageerayaan musharaxiinta mucaaradka ahi taasi ma waanay u muuqan inay tahay todobada haysa in doorashadii inay qabsoonto. Nuuridiin horta meeshan doorashadana uma dhaxayso dowladda federaalka iyo Puntland iyo Jubbaland kaliya sidaan ku sheegay shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka way matalayeen had iyo goor madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka waxaa laga rabaa waxaa hadda xoogaa isjiid ka jira waa Jubbaland iyo Puntland oo meela iyo dowladda federaalka qoliyaha musharaxiintii iyagu de stakeholders ma waa pressure group marka pressure groupna de male authority male marka waa koox un cadaadis waxa saad u dhigayso waa koox cadaadis wada pressure groupku waa koox cadaadis wada oo cadaadinaysa dowladda opposition oo kala oo mucaarad oo kala u dhaqmayo tabade maaragtay damac siyaasadeed uu ka hayo laakiin male wax awooda kuma laha arrintan iminka doorashada waxaa awoodda iska leh dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada marka waxaa looga baahan yahay haddii ay labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda federaalka ay arrinkii isku mari waayeen intii kale ee la joogtay marka ay dhexdhexaadiyaan oo iyagu marka door dhexdhexaad intay qaataan waxa lagu kala duwan yahay waxa isku hayaan maadaama labadii gobolna ay eedeynayaan dowladda federaalkana ay eedeynayso labadii gobol inay iyagu markaa dee qaataan hoggaanku ay yidhaahaan waxaasa la isku hayaa ama qoladaasaa gardaran ama dowladdaa gardaran ama maamul goboleedadaa gardaran marka dadkii goobjoogga u ahaa wada hadallada yaa laga rabaa arrinkaa inay ka jawaabaan. maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gobolka Banaadirna weheliyo heshiis bay gaadheen 17 bishii Sebtembar 2020 sanadkii dhamaaday doorashada lagu galayo
adiga heshiiskaasi siduu horta kuula muuqday aad iyo aad buu ahaa wax wanaagsan waan soo dhaweeyey wixii lagu heshiiyey dad Soomaaliyeed oo aan cidi ku dhex jirin ay intay meel fadhiistaan ku heshiiyaan wax walba way ka wacan yihiin oo dibadda lagaga keeno marka heshiis wanaagsan buu ahaa inkasta oo anigu aan jeclaa in xoogaa la khafiifiyo oo maadaama aynu nahay dad maaragtay tamartoodu iska yar tahay inaynu xagga ergooyinka oo kale maadaama doorashadani ay tahay mid dadban inaynu 51 ku dayno ergooyinka ama 3 ku darna ama 55 ka dhigno sidaas oo kale way qurux badnayd magaalooyinka lagu qabanayo waa okay haddii maaragtay la badiyey laakiin in waan jeclaa iyada laftigeeda in loo daayo maaragtay sidii hore oo 5 goobood 6 goobood lagu qabto laakiin overall waan soo dhaweeyey wax wanaagsan oo anu had iyo goor waxaan taageeraa waxa dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyaan ee aan loo yeerin marka aad iyo aad baan iyo nasiib darro u tahay inuu maaragtay heshiiskaasi ilaa haddeer soo gaadho saa u jiitamo adigu musharax madaxweynaad tahay musharaxiinta madaxtinimo ee dalka Soomaaliya badankooduna waxa ay samaysteen midowga musharaxiinta gole la yiraahdo golahaas intaas oo musharax oo kursiga madaxweynaha kaliya ordaya inay isugu tagaan adigu sidee kula muuqataa sidii aan ku sheegay Nuuridiin horta waa musharaxiintani waa musharaxiin horay dalka ama madaxweynayaal uga soo noqday ama prime minister ra'iisul wasaare ka soo noqday ama wasiiro ama safiiro marka iyagu kala ujeedadoodu waxa weeye inay xoojiyaan in ay yihiin dad maaragtay political stakeholders ama waxay ugu yeedhaan saamilay siyaasadeed laakiin waxay ku qurux badnayd haddayba samaysanayaan urur inay hal musharaxna ku midoobaan hal afhayaana samaystaan oo markaa ururka u hadla laakiin iminka sidan 20 nin oo wada musharax oo kursi wada doonaya haddana isku hal ujeedda ah anigu dee dal baan ku noolahay western oo waliba dimuqraadiyada laga isticmaalo ma arag anigu kolley arrintaa hadda ka hor waa tahay musharaxiintaasi waxa ay ku dhawaaqeen mudaharaad ka dhan ah dowladda oo ay leeyihiin mar haddii waqtigii rasmiga ah madaxweynaha iyo baarlamaanku dhammaaday waa in xafiisyada lasoo banneeyaa oo madaxtooyada lasoo banneeyaa mudaharaadkii hore siduu ku baaqdayba wuu baaqday dowladdu way ka soo horjeeday ayaguna waxay leeyihiin waana la xabadeeyey mid labaad bay ku baaqeen arrintaa mudaharaadada sidee adiga kula muuqdaan runtii horta Nuuridiinow horta xorriyatul qowlku waa wax wanaagsan dimuqraadiyaddu ay ka mid tahay laakiin haddii ay u maraan ama ay u mareen ama ay hadda u maraan weyga loo maro mudaharaad oo ah marka hore wasaaradda arrimaha gudaha inaad tagto ood warqad ka soo qaadato ay markaa arrinkaa ku oggolaadaan oo ay ogeysiiyaan hay-adaha amniga sida biliiska nabad sugidda ciidamada militariga kadibna meesha ay ka dhacayso mudaharaad matalan daljirka dahsoon oo kale waa degmada Boodheere doomiyaha degmada iyo taliyaha qaybta la ogeysiiyo oo markaa dawladdu ay damaanad qaado ammaanka musharaxiinta ama dadka soo abaabulay iyo dadweynaha dariiqa hadday mareen musharaxiintu sida ay dawladda u wada shaqaynayaan waa wax wanaagsan laakiin haddii uu yahay maaragtay mudaharaad keligood iyagu ay soo abaabuleen ay ciidamadoodii maleeshiyaadka wataan oo uu yahay wax maaragtay iyaga ku kooban oo ay dawladdiina ay maaragtay ayan kala wax kala ayan ka talagelin taasi had iyo goor waxay keentaa isku dhac iyo maaragtay amni darro marka anigu waxaan ku talin lahaa in ay musharaxiintu u maraan ama cid kasta oo doonaysa inay qabsato mudaharaad sida sharciga uu qabo maadaama aynu nahay dad dawlada oo ay dawlad ka jirto dalka inaynu ixtiraamno dawladda nidaamka dawladda waayahay dawladda lafteeda waxay aaminsan yihiin in ay banayso xafiiska oo gole kumeel gaadh la sameeyo waxay ahayd transitional oo kumeel gaadh oo aan ahayn hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dee dawladdan jirta taas sidaad u aragtaa iyada Nuuridiin horta yaa odhan kara qofka odhan kara waa qof mandate haysta
oo maaragtay haysta dee dastuuri arrin dastuuri ah waxa weeye sida aan kuu sheegay waxa weeye dawladdu wakti bay lahayd doorashaa la geliyay waktigii doorashada waa la dhaafay dastuurka qodobka saddexaad farqiisa koowaad iyo ka labaad dastuurka belgaadhka wuxuu sheegayaa iyo xeerhoosaadka baarlamaanku inta baarlamaan bedelaya inta la helayo iyo hay-adaha kale dastuuriga oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ka mid yihiin in dawladdaasi ay sii wado geedi socodkii dawladnimo laakiin qof odhan kara dawladda banneeyo xafiisyada ka soo baxa mana jiro meel ay ku qoran tahayna ma jiro cid odhan kartaana ma jirto waayo ma aha xisbiya mucaarada xisbi maaha dawladdani waa xisbi waa dawlad ku timi doorasho dadban doorashadii dadbaneyd un baana looga qaadi karaa laakiin xisbiyo aqlabiyad isku haysta maaha meesha adigu markaama waxaad aaminsan tahay in dawladdani ay hayso xilka oo doorashadayooda ay qabato oo golo kumeel gaadha iyo arrimaha laga tanaasulo golo kumeel gaadha ma aaminsani waxaan aaminsanahay waxa laysku haystaa eeg dawlad ma aha sanaadiiq la boobaya maaha meeshan waxa weeye 330 kursi marka madaxweyne xasan shakiisa lagu daro 330 kursi waxaa lagu doortaa meel fagaara ah oo adduunka oo dhan daawanayo oo Soomaaliya oo dhan daawanayso waxa weeye halkaasaa lagu doortaa madaxweynaha taasi marka ma aha wax la boobi karo waxaad ogtihiin doorashada Soomaaliya hadda had iyo goor lacag baa lagu soo baxay lacag baa la siiyaa xildhibaanada sida lagu maqaala haddana dadka lacagta bixiya had iyo goor ma helaan codka aqlabiyadda had iyo goor waxaa soo baxa qofka ay u arkaan xildhibaanadu inuu dalka samata bixin karo taasaa marka in lagu kalsoonaadaa wanaagsan iminka waxaa ka muuqda had iyo goor jiidadkan iminka doorashada kalsooni darra iyaga muuqda dhinacyada isku haya iminka wax isku reexreexaya hadday tahay nimanka la yidhaaho maamul goboleedada iyo dowladda federaalka laftigooda marka in kalsooni la isku qabo oo fagaraha la yimaado oo doorashadii la qabto oo la dedejiyo ayaananu soo jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah oo baarlamaanka la hadlay bilowgii bishan febraayo waxa uu sheegay in faragelin ay jirto shisheeye oo xooggan oo sababaysa in doorashadu jiitanto qolyaha doorashada qaybta ka ahaa ee maamuladana ay faragelintaasi ku jiraan adigu faragelin shisheeye Soomaaliya arrimaheeda inay ku jirto ma ku muuqataa way muuqataa dhinaca kastay kaga jirtaa xagga doorashaday kaga jirtaa xagga amnigay kaga jirtaa xagga dhaqaalahay kaga jirtaa xagga damaca dalka khayraadkiisay kaga jirtaa marka dadkaas oo dhani waa dad dalal shisheeye ah weeye oo ku xidhan dad gudaha jooga ama ha noqdaan dowladda federaalka ha noqdaan lafteeda ama maamul goboleedada ha noqdaan waxa weeye dalkani waa dal iminka soo kabanaya oo maaragtay dhulka yaalla oo ciidamo shisheeye ay joogaan oo amnigiisa sugaya marka lama odhan karo faragelin shisheeye oo dhinac walbii way ka maqan ugu dambeyn Bashir maxaad soo jeedin lahayd arrimahan marka la isku soo ururiyo si doorasho loogu gudbo oo dalka doorasho nabdoon ay uga dhacdo waxaa soo jeedin lahaa in la isu tanaasulo waxaan la isku hayaa wax weyn maaha waa wax yar nin kasta oo hadda dowladda federaalkana qalin bay haysataa dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu isagu laftigiisa soo noqdo oo uu waa musharax maamul goboleedada dad baa u sharaxan ama midowga musharaxiinta ha noqdeen qaar ka mid ah ama iyaga laftigooda ha noqdeen xisaabtii baa marka waxaa jiitanka keenaya qolo walba xisaab bay haysataa xisaabtii baa isu keeni kari lahaa marka waxaan odhan lahaa xisaabta intaad halkaa iskaga dhigtaan doorashada ha la dedejiyo waxyaalahan yaryar ee hadda la isku hayana waa tii baydhabo waxaanu maqalay waa lagaga heshiiyey guddiga farsamada xalliyey ha la dedejiyo doorashada hana la isugu yimaado hoolka lagu dooranayo madaxweynaha saasaan ugu qaba
waatay aad iyo aad bad mahadsantahay bashiir xaaji cali oo ah musharax madaxweyne oo u tartamaya doorashada 2021 ee dalka Soomaaliya isla markaana khadka Skype-ka toos uga soo jiray dalka Canada. aad bad mahadsantahay Bashir.